laba qalad ay galaan ganacsatada Soomaaliyeed badankooda. Qaladka koowaad, inaysan lahayn ganacsigooda boor ama bacda oo wax lagu qaato iyo stickers oo magacyadooda ku qoran yahay oo xarunta u taal dukaanka ama meelaha u yaal. Qaladkaas wuxuu keenayaa in customer-ka uusan arkin ganacsigaaga magaciisa. Imise dukaan ayaa aragtay markaa gashay aa weydiinayso meesha magaceed, sababtoo ah ma leh meel ay ku qoran tahay xarunta magaceeda. Qaladka labaad, inaysan lahayn social media management, qof u qaabilsan social media oo u maamula. Waxaa arkaysaa ganacsi ku fiican inuu wax iibiyo oo offline ahaan, laakiin online markay noqoto wax iibin karin. Ganacsi walbo waa u muhiim inuu social media yimaado. Fiirso caalamka, waxaa arkaysaa qof meel tamajaro joogo oo leh social media, qof meel shax joogo oo leh social media. Soomaali way leedahay laakiin ma badno majority ahaan. Haddii uu ganacsigaaga ku sugan yahay labadaas qalad, waxaa kaa caawin karaa labadaas qalad saa ugu bixi lahayd xalkoodna aa u heli lahayd. Waxaan kuu samayn karaa boor, waxaan kuu samayn karaa bac iyo designada wixii ku saabsan stickerska dhammaan wax walba daawacada. Labo, in ganacsigaaga aan u samayno social media management oo si daily ah muuqaal loo soo dhigo oo kasoo dhex muuqdo ganacsiyada kale, waana mid aad iyo aad u muhiimsan. Waxaan rajaynayaa in labadaas qalad aad iska ilaaliso haddii aad leedahay ganacsi. Haddii aad u baahan tahay ganacsigaaga inuu kobco, waxaad igala soo xiriiri kartaa nambarkan. Mac salaam.